السلام عليكم. مقال كلمات waxaan kaga hadlaynaa konton xikmadood iyo dhaayo insha Allah ka faa'iidi doontid dadkii tiriya xikmadan iyo dhahdana inta magacaantooda waqtigu noo saamaxay ku soo qaadan doona fadlan hadda nagu cusubta subscribe sarsan noo socoto muuqaalada dambe taawasho waan adan ku bilowno xikmada koowaad waxaan bartay inaan ku kalsoonaan qofka dadka xantooda iga sheekeeyo sababtoo ah anigana maalin ayuu iga sheekeen doona qofka bini'aadamka sayid uu noqon karo wuxuu sameynayo laakiin sayid ma noqon karo wuxuu dareemayo Gustav Froding adigu ma nacbid laakiin waxaad nacabtahay sawirkaad iga aaminsan tahay sawirkaasna aniga maaha ee waa sawirad adigu sawiratay qofka rajadiisa ku xidhay ilaahay rajadiisuna weligii ma lunto Shacraawi bini'aadamku wuxuu ku mashquulaa iibsashada alaabaan uu haysanin waqti ku raaxaysto Mario Vargas ixtiraamku waxa kamid ah inaad qof walba dhageysato laakiin maahan inaad waxay leeyihiin oo dhan rumaysato Gibran Khalil Gibran maxaa ka qurux badan inuu qofku wax arko mujtamac indhalo dhaxdooda Jose iska ilaali inaad isla weynaato sababtoo ah dadku waxay arkayaan nusqaantaada aduun baan arkayn Daha Hussein raggu dhammaantood way isku oraahay hadal eegayeen laakiin waxaanu ku kala saarnaa waa ficilkooda dhammaanteen khaladaad weyn galna ee ha u dhaqmi sidii qof dadka kale ka wacan nicamku waa saddexun mid uu qofku helay uu og yahay mid uu sugayo iyo mid uu haysto laakiin aanu dareensanayn Ibn Qayyim rahimahullah calool maran jeeb bilaa lacaga iyo qalbi jaban ayaa ku bari kara casharada ugu wanaagsan dunida Jim Carrey waxa kaliya dunidan haysta waa karaamadeeda iyo kelimadeeda kumana lumin doono qofna taas ka fogow dadka yaraysta hamigaaga iyo rajooyinkaaga kuwaas waa kuwa hamiga yar laakiin dadka hamiga waaweyn waxay ku dareensiin doonaan inaad adigu ka mid noqon karto dadkii waaweynaa dunida soo maray Mark Twain ninka waxaad ogaan kartaa waxa agtiisa ka weyn marka uu cadhoodo Abraham Lincoln filosoofkii Greek ahaa Aristotle ayaa la weydiiyay maxay qofka ku qiimeysaa markaasuu ku jawaabay inta buugu akhriyo iyo wuxuu akhriyo kaftanka dhexdiisa run badan ayaa ka buuxda Einstein noloshu waa sidii masrax oo kale ha ku cajabiso ama yaanu ku cajabin tigidhkii waad goosatay Shakespeare marxaladaha adagi waa sidii xagaaga oo kale waxaa daata dadkii xumaa sidii waraaqaha geedka oo kale Voltaire gabadhu markay cadhooto waxay weydaa rubuc quruxdeedii iyo badh gabadhnimadeedii iyo kalgacaylkeedii Jamaal Maxfuud lacagtu wax ma rumayso laakiin dareenku bidaytiisa marmar Richard haddii qof sirtaada u sheegto waxaad gacanta u gelisay leeb uu markuu doono kugu soo gemi karo Adolf Hitler qofkii hadda ku ixtiraami waaya berina kuma ixtiraami doono iska daa waqtiga ayaa bedeli doona Mark Twain marmar waxaan u cararnaa dhanka hurdada ma ahan inaan raaxo ka raadinayno ee waa ka cararka waaqac aan ka baqan inaan waajahno xanuunkiisa Jim Simon wixii adii lagu qoray adoo daciifa xataa waad heli doontaa laakiin wixii adii lagu qorin xataa kuma heli doontid awoodaada Ali Ad-Dandaawi rahimahullah haka qoomameen wixii tagay ee ka baro kaliya Adolf Hitler qofkan adii kugu kaaftoomin kuma qalmo ma jiro shay iftiinka ka dheereeya marka laga reebo akhbaarta xun oo kaliya maadaama qawaaniin u gaar ah leedahay Douglas Adams been ha u sheegin weligaa qofku uu kalsoonaaday ha kuna kalsoonaan qof been kuu sheega Shakespeare nicamkaagii ayaa ilaahay u dhex muquuranayna adayna mahadoo dhani ku sugnaatay Ahmed Shaqiri itus qofka la joogto mar walba anna waxaan ku tusi doonaa
cidaad adigu tahay. Thomas Carlyle. inaad da ahaan korto ma ahan inaad nolosha hormartay. Douglas Horton. haddii qofka guuldarraysto uu dhoola caddeeyo, kii guulaystay macaankii guusha ayaa ka tagta. Adolf Hitler. cuquusha waaweyn waxay falanqeeyaan afkaarta, cuquusha dhexena waxay falanqeeyaan dhacdooyinka, laakiin cuquusha yaryari waxay falanqeeyaan dadka waxbarta waxay farxadu inaad nolosha hadaf u samayso kaa kiciya sariirta subaxdii. Anthony Robbins. haddii ceeb qof kaa soo gaadho waa inay adig kugu ekaataa oo ha faafin. haddii aad asturto waxaad leedahay ajar ah qofkii qof muslima astura ilaahay ayaa astura. Caid Alqarni. la inooma abuurin waaritaan ee samee raad wanaagsan oo dawada hadha. waxaa baabi'i lahaa mushkilado badan haddii dadku baran lahaa sida layskula hadlo intay dadka kale ka hadlayaan. Axmed Shaqiri. ma jiro qof dunida dul saaran oo ku dareensiin kara inaad isaga ka hooseyso haddaanad adigu u fasaxin taas. inaad qof ku kalsoonaataa waa laba natiijo midoon: inuu weligii kula joogo ama in cashar weligii aad xasuusnaato. qofka ugu beenta badani waa qofka badiya ka sheekaynta naftiisa. George Bernard Shaw. marmarka qaar uma baahnid talo ee waxa keliya aad u baahan tahay waa qof ku dhagaysta. Jacques Martin. qofka bini'aadamka wuxuu u baahan yahay 2 sano si uu hadalka u barto, laakiin 60 sano si uu aamusnida u barto. saaxiibtinimada iyo jacaylku waa magaalo xidhan, waxaana soo geli kara ka keliya haysta sharciga oofinta. kuwa aan ra'yigooga bedeli karin waxbana ma bedeli karaan. George Bernard Shaw. qofna ma jecla in xadhka lagu xidho oo la jiido xataa haddii ka samaysnaan lahayn xadhka dahaba. Abraham Lincoln. haddii dhabarka dambe mindi lagaa geliyo ogow inaad afafka hore ku sugan tahay. Adolf Hitler. ka warhay dhaqankaaga sababtoo ah waa ka sheega waxaad tahay. Jabran Khalil Jabran. kontonkeena xikmadood intaas inoogu leeyahay. waxaan rajeynaya inaad ka faa'iideen. fadlan hadduu ku cajabay muuqaalkan sii shaar gara, subscribe na saar. Assalaamu calaykum.